dhalinyaro cimrigu waa wax yar cimrigaaga qayb ka mid ah tuuri waqtigaagu yuu kaa dayacmi waa cimrigaagii adigoo aan lagaala tashanba dunida lagu keenay markaad ka baxaysana cidi kaalama tashanayso intaa yar baad joogaysaa markaa labadaa u dhaxeeya imaatankiina lagama talagelin tegisteedana lagaa talagelin maayo se intan yar waxa lagu yidhi bal adigu ikhtiyaar laho oo wax samee intaasaad joogaysaa kooban oo maxay ah 50 sano 20 sano 60 sano 70 sano qofba in aanu garanay intay noqon intaa yar waxa lagu yidhi laka alxurriya intaa yar ayaa lagu yidhi baa aakhirana lagu xisaabinaya intaa yar baad mubtala tahay intaa yar maxaa laga rabaa markaa inaanay lacib iyo lahwi iyo orodkaaga lumin marka waqtigaagu ama adduun midhaha ka dhalinayo anfac ku leeyahay ama aakhira anfac ku yeesho labadaa waxaan manfac ku lahayn iska dhaaf dadka waxa u dhaxeeya waqtiga siday uga faa'iidaystaan ninka dhalinyaronimadiisa invest garaysa markaa istithmaar maalgashi ninka dhalinyaronimadiisa maalgashada waqtigan ka warramaya waqtigaagaad waxaad ku maalgashanaysaa aakhira iyo adduunba wuxuu noqdaa dunida dan dadka faa'iidsay somaydan maqal hebel baa succeeded buu noqday naajix ninkaa hebel weeyaan macnaheedu waxa weeyaan markuu dhallinyarada ahaa buu si fiican u dadaal wuu soo daalay markuu dhallinyarada ahaa midhihii buu hadda guranaya waqtigan markaa waxaa u baahan tihiin inaad xoog uga fakertaan waanay cayaarida kaga lumin imika waxaa laga yaabaa marka aabba ama hooya ku tidhahda wax akhriyo inaad wax akhrido intaa yaroo aad u arkayso qasab inay tahay wax badan keeni mayso inta midhaha keenta waa inta adiga kaa soo go'da waa markaad adigu dareemto waqtigaaga inaad u baahantay inaad ka faa'iidayso inaad wax ku barato cilmi ku barato cilmigaad doontana waad baran karaysa laakiin wuxuu u baahan yahay in waqti iyo juhdiya in la geliyo haddaad maqasho nin baa caalim noqday nin baa khabiir noqday nin baa ka noqday dadka miyuu ka waqti badnaa maya intan dadku haystaa ugu haysta 50 iyo 60 iyo 70 ugu jira laakiin intan buu isku dayay inuu sida ugu fiican uga faa'iidaysto cimriga inuu ka warramaynana waxa ugu sii fiican kana ku jirta waayo kana dib ku jirta dhalinyaronimada waxay yiraahdaan waa cimriga aan cidi kula lahayn markaad weynaato reera iyo caruura iyo shaqo iyo ala yiraahdaa cilaaqaad ijtimaaciya iyo waqtigaaga waa lagula yeelanaya markastoo da'daadu sii korodhana waqtigaagu wuu soo yaraanaya waayo dadka kugu xidhmaya ka sii badanaya intii hore laakiin ninku markuu dhalinyaro yahay cidna mas-uulka ma aha caruur iyo reerana ma daba socdaan bulshada xidhiidh badan lama laha waa naftiisa isaga keligii waqtigiisa leh laakiin iyaga ceebta haysataa waxa weeyaan waxaanay aqoonin how to use it siduu isticmaali lahaa siduu waqtigan uga faa'iidaysan lahaa kaas baa ka lumay dhalinyaro wax kastoo aad rabto inaad noqoto waxaan isleeyahay laba waduun baa lagu gaadhaa waddada koowaad waa ilaahay cabsidii ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyahay waman yattaqi illaaha yajcal lahu min amrihi yusra ciddii ilaahay ka cabsata ilaahay arrimihiisa waa u fudaydiyaa ilaahay cabsidiisa haddaad laasimto ilaahay arrimihiisa wuu kuu fudaydinaya waxaad arrin leedahay dadku markay fakerayaan waxay yidhaahdaan waxaan rabaa inaan diinta barto oo cibaadaysto waayo aakhira inaan badbaado adduunkana inaan xoogsi tago adduunka iyo aakhiraba ilaahay baa iska leh haddaad adduunyo raadinaysana ilaahay baa laga raadiyaa haddaad aakhiro raadinaysana ilaahay baa laga raadiyaa laba wadoo kala gedisani ma jiraan waxaba biyadihi lmulku wahuwa calaa kulli shayin qadiir soo qur-aanka kumaydan arag biyadihi lmulk ilaahay baa mulkiga dhammaantii iska leh wax walbana isaga awooda qofka mu'minkee dhab tahay markaas adduunkana ilaahay buu ka raadiyaa ilaahay macsidii kuma raadiyo adduun markuu raadinayo ilaahay buu ka raadiyaa subxaana wa tacaala waayo ilaahay baa gacantiisa adduunkao dhami ku jira isagaa maamula taa ogeed baa qofka mu'minkii subaxii markuu soo tooso wuxuu yidhaahdaa maxay raditu billaahi rabba وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وإنني وامحي إلهي ما ملكي سان رالي كنوضي رب النمد وسيدي ومالكي ومدبر الكون إلهي ما ملكي سان رالي كاهي إسلام نمدنا ديني يدقم بانو هستا وضدا مريي ويان نبي محمد عليه الصلاة والسلام وقت الماما هاي والنبي تسعي وضدا إذا قفك مؤمنك واقو مركو بريو إلهي حقي سوكعه
إلهي الرالي هشيسي الرادية حلال يا حرام وحكو الرادية وحلال لو أضوطا حرام وكتغا marka warkayga koobani waxa weeyaan haddaad adduunyo doonayso ilaahay bay gacantiisa ku jirtaa meel kale lagama raadiyo haddaad aakhiro doonayso inaad badbaadana ilaahay bay gacantiisa ku jirtaa meel kale lagama raadiyo al-ula wal-aakhira soo quraanka kubaydaan arag labadaba ilaahay waa iska wa inna lana lal-aakhirata aku xiga wal-ula labadaba ilaahay baa leh han horana isaga leh tadambana isaga leh isaga markaa maxaa wax lagaga raadiyaa raalli gelintiisa iyo cabsashadiisa waman yattaqi illaaha yajcal lahu min amrihi yusra hadday dhibi kuu timaado waman yattaqi illaaha yajcal lahu makhrajan waa markaa dhibi ku qabsato ilaahay wuxuu leeyahay makhraj baa kuu furaya marka kalena arrimahaaga lagu fudaydinaya waa lagu islaaxinaya idan ilaahay cabsidiisa qur-aanka imise goor bay ku soo aroortay aad u malaynaysa aad u tiro badan ومن يتقي الله يعظم له مئة يا قرنيا يا يعظم له ومن يتقي الله يجعل له فرقانا وصارا ومن يتقي قرآن هذا يكتب ومن يتقي الله نولا الشرطة بيكسار سيسرت جاوغيت با إلهي وحوين أقول الماما يا أمديه إذن كهري إذن كبوحن وإذن دردار ما إذن فري أن اتقوا الله إلهي كعب صدى هي دمانت إلا إذن فري بس هو قدرك كواد قدرك كواد وحشيقيا الدنيا آخرة إلهي بيقعدتي سكوتشر تاية سيقها لقراني ولقاها يسكو ديرنا إلهي مع سيدي وعقور رادس هذا الدنيا دون سنة إلهي باهية آخرة هذا دون سنة باهية قدرك الله بعد هذا اللي يرتنا الرباي دين شيئا وحويا عمره هو وحيا أذيك أن لقالت تشبه الدنيا لغوكيرا الدنيا مركز يسير عندنا لقالما تشبه ولا بهايو يدا لقالما تشبه marun baad iska timiyo dhalat ilaahay baa ku keenay markaad ka baxaysana cidi kaalama tashanayso maalinun bay naftu ka baxaysaa iyo geeri intaa yar baad joogaysaa markaa labadaa u dhaxeeya imaatankiina lagama talagelin tegisteedana lagaa talagelin maayo se intan yar waxa lagu yidhi bal adigu ikhtiyaar laho oo wax samee intan hore shaqo kuma lihid inta dambana shaqo kuma lihid intaasaad joogaysaa kooban oo maxay ah 50 سنة 20 سنة 60 سنة 70 سنة قف إن كانوا قرنين تنور إنت ير وحلو لك الحرية إنت ير أيها لو يبقى آخرنا لو حسابنا إنت ير بد مبتلى طاي إنت ير محل قرب مركا إن أنا اللعب هي اللهو هي أرأرت كأقل مركا قطب كينا لبعض حويان إن كفى إذا سنة وقتها غاية ما يمكن وحيس تورتقلها haddaad maqasho nin baa caalim noqday nin baa khabiir noqday nin baa ka noqday dadka miyuu ka waqti badnaa maya intan dadku haystaa unbu haysta 50 iyo 60 iyo 70 unbu jira laakiin intan buu isku dayay inuu sida ugu fiican uga faa'iideysto marka dadka waxa u dhaxeeya waqtiga siday uga faa'iideystaan qofna wuu dayacaa waqtiga oo cayaar iyo lahwi iyo wuxuu isweydiinayaaba soo dadka ma idan qaar leh arxageen waqtiga ku soo dilaa waqtigiis cimrigiisii baa waa dhib ku haya haddii lagu yidhaahdo imanka 5 sannadood cimrigaaga ha laga jarma yeelaysa yaa yeelaya haddii lagu yidhaha cimriga lagaa nuqsaamiyo lagu marsiin maayo bale xadiidkii muxuu sheegayay aadam miyuu arkay carruurtiisii mid ka mid oo la yidhi cimrigiisu waa imise waqti yar buu loo sheego 40kayga ha looga gooyo buu u tilmaamay hadhow markii waqtigii gaadhay buu haddana diiday ma ogolid waqtigaaga in wax laga jaro adigoo sidaa u diidan ayaa waxaad leedahay maya haddaba anaa saydhsaydhaya oo saad odhanaysaa waxaan akhriya adduuntoona ficil baan ku bixinaya marka waa cimrigii qayb ka mid oo aad adigu tuurayso markaad leedahay xaggaynu ku soo dillaa cimriga waan waqtiga xaggaynu maanta ku soo bixin waxaad leedahay jus yaroo ka mida cimrigaygii talo xaggaan ku tuura bal meel ila daydaya in cimrigaygii ka mid aan rabaa inaan tuure meeshii aan ku tuuri lahaa ila daydaya weeyaan waqtigaa yari wuxuu u baahan yahay sida ugu fiican ee aad uga faa'iideysan karta inaad uga faa'iideyso taa macnaheeduna wax weeyaan waqtigaagu ama adduun midhaha ka dhalinayo anfaca ku leeyahay ama aakhiro anfaca ku yeesho labadaa waxaan manfac ku lahayn iska dhaaf maxaan manfac ku lahayn kubadda la daawadaa manfac ma leedahay dad maantoo dhan daawato Manchester iyo Liverpool ka badinaya maxaad faa'iideysaa
adigu haddaad cayaarto waaba laga yaabaa inaad tidhaahdo waan ororday murqyada ay dhismay jidhkaan kala bixiyey adigu haddaad soo cayaarto waaba suurtagal in la yidhaahdo wuxuun baad faa'iiday intuu doonaba ha leekaaday kastoo khasaaro badanna laga yaabo inuu ku jiro inaad wuxuun faa'iidaa laga yaabo laakiin markaad TV hor fadhiisato ama mobilka hor fadhiisato aad tidhaahdo Liverpool iyo maanta isu baxaya iyo Manchester ama magaalo Ingiriiska ku yaala timankooda baa isu baxaya waad maanta oo dhan hor fadhido maxaad faa'iidaysaa maxaad faa'iidaysaa markaad maanta oo dhan social media saa leedahay kolba mid soo baxaya social media-na nimanka sameeyey waxay ugu talagaleen haddaad furto inaanad ka bixin injineerada design gareeya qaar baa waxay ka hadlaan bis waxay design gareeyaan intibaha insaanka qofka si maskaxdiisa loo qabsan karaa marka lagu qabto oo lagu wada yaabo marka adigu soo hari maysid rag baa takhasuskaa leh oo lacagaa u badan ku qaata oo farsamadooda ay tahay bahalka haddaad shidda inaanad ka bixin ayuu isagu ku ballan qaadaya haddaad saaba tidhaahdo inaad ka bixin haddii lagu yidhahdo qur-aanka akhriso ama deriska akhriso nusa saac markaad akhrido waxaad leeyahay maanta oo dhan baanu akhriyayni hooyo markuu tidhahdo war deriskaaga akhriso haddaad saacad guriga fadhido waxaad leeyahay maanta oo dhan baan fadhiyo akhrinay masaajidka haddaad soo gasho salaada marka la tukado 20 mire lagu yidhaahdo qur-aanka akhriso fadho waar xaggaad hebelo ku timi maanta oo dhan masaajidkaa fadhiyay baad leedahay haddaba 20 daqiiqaad joog maanta oo dhan masaajid laakiin kan haddaad shiddo 3 saacadood haddaad ku jirto ma ogid saad saa unu leedahay ragga badh baa say saa u leeyihin garabku xanuunaa meelaha neerfaa ku jira oo gacmo dabqadaan suu saa unu lahaa iyo wax kale mu eegaynin wax cilmiya oo aad ka keentay miyaad garanaysaa ma jiro sidaa ogeed waxaa la yidhahdaa mustawaha ardadee dunida iminku uu ka hooseeyo mustawihii ardadii hore ardadii aan TV iyo maxaa la yidhaahdaa social media iyo waxaan oo dhan haysan way ka mustawo hooseeyaan waayo kuwani wakhtigoodii bay dayaceen kuwaasina inta ugu badan leh ama waxa loo dhigo akhri jiray ama buugaa kaloo akhrisan jiray cilmu kororsan jiray wakhtiga waxa ugu badan ee laysku dhaafiya buugaag bay ahaan jireen xataa kuwa sheekabareleyda buugaagta akhriya maalan buugaagtan riwaayadaha noofallada waxaasi akhriya xataa haddaan wax kala faa'iidin bay odhan jireen luqadiisaa dhismi jirtay waa adab buu akhrinaya adab luqa alcarabiya haddaad akhrido carabigaagu kor buu noqonaya adab luqa ingiliisiya haddaad akhrido ingiriisigaagu kor bay xataa bay leeyihin kuwii waxaa akhriyi jiray ugu dambayn waxbay faa'idi jireen oo ah طلاقada luqadooda iyo aqoontay luqada u leeyihiin ay kor u kacdo social media laakiin luqana lagama barto waa la wadaa ishu baa la daaliyaa geedhagtu baa la daaliya marka waxaan idin tilmaamayaa tilmaamtii hore waxay ahayd ilaahay cabsidii adduuniya aakhiraba gacantiisay ku jirta tilmaamteeda labaadna waxay ku kooban tahay waqtigaagu yuu kaa dayacmin waa cimrigaagii qofna ma ogola cimrigiisa inuu in sadaqa u bixiyo laakiin in baad rabtaa cimrigaagii ka mida inta TV iyo social media la daawado haddaad isku darto way misaad malaynaysa maalintii misaad daawataa TV ama social media haddaan ugu qiyaaso waxay isleeyihin ninkii nagu yari 3 saacadood meelaha uu ku jira soo maaha saacad TV-ga uu eego kolba war eego kolba meel eego saacad uu baahkan riixriixo ugu yaraan 2 saacadood uu ku jira haddaynu 2 saacadood xisaabino cimrigaaga 1 sano qura oo maalintii 2 saacadood ka jaro waa imisa anahdi waxa weeyaan 730 saacadood 730 saacadood waa imisa maalmood 24 haddaad u qaybiso waa imisa waa intaasoo maalmood oo cimrigaaga ka mida meelaad kaga warrantay garan maysa taasoo maalmood oo cimrigaaga ka mida meelaad kaga warrantay garan haddaad intaa waxbarasho gelin lahayd مثلا ardada jaamacaadka dhigta credit hours waxa la yiraahdaa lagu xisaabiyo inta saacadood oo subject-ga qaatay ma jiro subject jaamacadda lagu dhigto oo 730 saacadood la qaato sanad ma jiro subject kasta oo jaamacadda aad u tagto wax ka yar baad qaadataa way u badan inta credit hour aad soo qaadataa yani khubara noqon lahaydee inta uun TV-ga iyo social media ku baxda hadaynu cilmiga gelino mid adduunya mid aakhira ku dooraba ha ahaato hadaynu cilmi gelino dunida khabiiradeedaynu soo baxayna hal takhasus ma ahay 1 iyo 2 iyo 3 iyo 4 takhasus baad yeelan kartaa cimriga aynu ka warramaynana waxa ugu sii fiican kana ku jirta waayo kan adiga ku jirta dhalinyaranimada waxay yiraahdaan waa cimriga aan cidi kula lahayn markaad weynaato reera iyo caruuro iyo shaqo iyo la yiraahdaa cilaaqaad ijtimaaciya iyo waqtigaaga waa lagula yeelanaya markastoo da'daadu sii korodhana waqtigaagu soo yaraanaya waayo dadka kuwa xidhmaya ka sii badanaya intii hore laakiin ninku markuu dhalinyaro yahay
عندنا مسؤول كماها عرورية غيرنا ما دبا الصعدان برشدة حديد بدل لما لها ونفتيسة سجا كلي وقت يصله لكن يجا عبتها يستا وحوية وحنا نقول أقول how to use it سيدو استعمال لها سيدو وقت كانوا قفا إيديسان لها كاسبا كلمي وحان مركا آخر مركا لا تقنا حديث النبي قال تقنين وحي شيء جيسا عمرك جودهان اللي سويدينيو لكن كان اللي يرني ماذا ينسى سيجار اللي سويديني وفي شبابه فيما أفناه أو فيما بلاه عمرك قلنا ولا سويدينية ودوا انت هذا هي ست اختيار كهذا قال لي ايه واحد صبي كان سنة اللي يرني ماذا كسيجارو مسؤولية كلمة ما تهيني محل قوار يسال ويدينية نفترض مو يعني وحكولات مسؤول كاهين ما جرتو محل غلطة marka waa shaqo gaar ah ninka dhalinyaranimadiisa invest garaysa marka istithmaar maalgashi ninka dhalinyaranimadiisa maalgashada waqtigan ka waramaya waqtigaagaad waxaad ku maalgashanaysaa aakhira iyo adduunba wuxuu noqdaa dunida dadka faa'iiday somaydan maqal hebel baa succeeded buu noqday naajix ninka hebel weeyaan macnaheedu waxa weeyaan markuu dhalinyarada ahaa buu si fiican u dadaal uu soo daalay markuu dhalinyarada ahaa midhihii buu hadda guranaya waqtigan markaa waxaa u baahan tihiin inaad xoog uga fakertaan waana cayaarida kaga lumin imika waxaa laga yaabaa marka aabba ama hooyo ku tidhahda wax akhri inaad wax akhrido ama macallinku markuu homework kuu dira ku yidhaha intaa kasoo shaqeyno tiraa kaa macallinka ah waa mid homework badan kalaaskiisaba haddaad gasho wuxuu ku faraya waxaa laga soo shaqeeya intaa yaroo aad u arkayso qasab inay tahay wax badan keeni mayso inta midhaha keentaa waa inta adiga kaa soo go'da waa markaad adigu dareento waqtigaaga inaad u baahantay inaad ka faa'iidayso inaad wax ku barato cilmi ku barato cilmigaa doontana waad baran karaysa laakiin wuxuu u baahan yahay in waqti iyo juhdiya in la geliyo walidaalik dhalinyaro labadaa tale oo keliya haddaan idinku koobo laakiin aad si fiican u fahamtaan oo u qaadataan waqtiga sida loo manage gareeyo iyo time managementku waa wax cilmi la barto laftiisu macallimiintiina waxay idinka sheegi doontaan saad waqtigaaga u isticmaali lahayd sida ugu badan sidee aad uga faa'iidaysan kari lahayd maxay u baahan tahay in waqtigaaga sida u wanaagsan looga jadwal bay u baahan tahay to do list baad u baahan tahay waxan baad u baahan tahay waxan baad u baahan tahay si aad waqtiga uga faa'iidaysan karto labadaa shay haddaa si wanaagsan u garataan kii koowaad muxuu ahaa ya ilaahay cabsidii waynu leenahay adduunka iyo aakhiraba waxay ku jiraan maxay ilaahay gacantiisa marka isaga wixii aynu ka doonanay in cadhadiisa ku raadin aynu ku raadinna maxay ridaa inaynu alla raali gelino inaynu isaga barino inaynu isaga weydiisano inuu nolosha inoo fudaydiyo inoo furo kaasi waa ka koowaad waa ra'si lamr ka labaadna waxa weeyaan maxay waqtigaagu aakhiri iyo adduun inuu miduu kuugu jiro cimrigaaga qayb ka mid a ha tuurin cimrigaaga qayb ka mid a ha tuurin labadaa haddaa ka adkaataan anaa idiin ballan qaadaya inaad dunida guulaysataan aakhirina guulaysataan labadaa haddaad ka adkaato ilaahay cabsidiisa iyo waqtiga ka faa'iidaysigiisa haddaad ka adkaataan adduunkana culamo waxaad doontaan baa noqonaysaan aakhirina waa liibaanaysaan waa inaanad isku mid noqonin sanadkan iyo sanadka dambe waa ilaa faashil baad tahay shalay sidaad ahayd waa inaad isku daydaa cibaado ahaan cilmi ahaan aqoon ahaan dhaqaale ahaan dadnimo ahaan akhlaaq ahaan inaad ka kortid halkaad shalay taagnayd inaad routine life ku jirto maaha nolol routine oo aan horumar lahayn waa markaad qoftay markaad qoys tahay waxaad u baahan tahay inaad qaabayso qoyskan maxaad ka dabacsantahay xaggaad ku wadaa meeshaad u hogaaminaysaa inay kuu muuqato khudadaad yeeli lahaydna inay kuu muuqato noloshu caraaqil ma weydo waa mashaakil kaa hor imanayaan laakiin mashkilad kasta way out bay leedahay meel looga baxaa bay leedahay waman yattaqi illaaha yajcal lahu makhraja wayarzuqhu min xaysu laa yaxtasib ciddii alle ka dhowrsata in alle subxaanahu watacaala problemska iyo mashaakilka makhraj uga samaynayo way out meeluu ka baxo inuu helayo haddaba su-aashu waxay tahay noloshaada maxaad ka dabacsantahay noloshaada soo socota maxaa kuu qorshaysan inaad jaamacad ka baxdo oo waxbaratid oo guursatid oo lacag samaysid ma intaasaa waxaad u nooshay mise qorshe kalaa jira maxay tahay nolosha dhow ahdaafta ama gaayaadka aynu rabno inaynu taxqiijinno oo samayno gooliska ama himilooyinka aynu rabno inaynu gaadhnaa maxay yihiin
maxay tahay ahdaafteena dheeri maxaa lagu qiyaasaa ma miqyaasu dhalik inaynu hore u soconno inaynu dib u soconno maxaynu ku qiyaasnaa see loo qiimaynaya waxyaabaha wax lagu qiimeeyo markaad mustaqbalka qorshe loo degayo ugu weyn waxaa ka mid ah alixsaa'iyaat statistics data in la helo tira koobiyo awooddaada xooggaaga tiradaada dhaqaalahaaga waayo waxaasaad ku qorshaynaysaa inaad mustaqbalka wax kaga qabato ayuha alaxiba ilaahay wuxuu ina yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu ittaquu allaha waltandur nafsun maa qadamat ligad alle cabsidii baa layna faray marka hore kadib baa layna yidhi khudadiinana degsada eega berri waxaa u horumarsanaysaan markaasaa haddana la yidhi wattaquu allaha ina allaha khabiirun bima tacmaluun waltandur nafsun amarkaa labada hareeroodba waxaa ka xiga alla ka cabsi baa layna faray macnaheedu waxa weeyaan khitadkeenna iyo waxaynu mustaqbalka qorshaynayno dhammi waa inaanu marnaba noqonin wax ilaahay tiisa khilaafsan waayo cid kasta oo khutad degta calaa gayri huda allah lam walan yuflixu ma guulaysanayaan maxaynu u leenahay markaynu qorshe degayno alla ka cabsigu kowha ka noqdo ugu horreyn qur-aanka ilaahay wuxuu inoo tilmaamay inay nolosha fududaanayso bini aadamkuna waxa uu jecel yahay uu rajaynaya waa inay wax u fududaadaan xataa hadduu qabanayo inuu si fudud u qabto waman yattaqi illaaha yajcal lahu min amrihi yusran baa ilaah yidhi ciddii ilaahay ka cabsata arrinka alle waa u fudaydinaya waxaynu rabnaa khudada u degaynoo dhammi waa nolosha inaynu si fudud u noolaan karno waxaa markaa qorshe la degaya lagu talagalaa riskiska jira waxaad adigu rabto qura lagama hadlee waxaa laga hadlaa maxaa dhib kugu xeeran maxaa kaa hor iman kara maxaa dhici kara maxaa isbeddel iman kara maxaa caqabad kugu noqon kara qur-aanka ilaahay wuxuu inoogu tilmaamayaa alla ka cabsigu inuu masaa'ilkaana makhraju yahay waman yattaqi illaaha yajcal lahu makhraja wayarzuqhu min xaysu laa yaxtasib ciddii alla ka dhowrsata in alle subxaana wa tacaala problemska iyo mashaakilka makhraj uga samaynayo way out meeluu ka baxo inuu helayo qorshuhu wuxuu u baahan yahay in ilaahay subxaana wa tacaala ku hanuuniyo samaha kugu hanuuniyo ama aqoon waxaa qur-aanka ilaahay inoogu tilmaamaya wattaquu allaha wayucallimukum allah wallahu bikulli shayin caliim saa ogeed ayuha alaxiba waxaa layna barayaa inuu qorshaheenna ka horeeyo alla ka cabsigo dadka maanta in badanoo ka mida dadka ummadda qorshaha u degta 5 sane soo socda maxaa la qaban 10 sane soo socda maxaa la qaban 20 sane soo socda maxaa la yeeli waxaynu u badannay inaan masaa'ilkan inooguba jirin tirada inaanay ku jirin dhaatada aynu soo urursanay aynu rabno inaynu wax ku baysgarayno ama ku dhisno haddii alla ka cabsigu uu horeeyo waxaad helaysaa basiira aad ku kala aragto mustaqbalka dheer in ilaahay subxaana wa tacaala toojka ku wiifiyo sida ogeed baa ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamaya in tattaquu allaha yajcal lakum furqaana ilaahay haddaad ka dhowrsataan oo la ka cabsigu uu yahay main pointkiina ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu idin yeelayaa furqaan bayna alxaqi waalbaatil waxaa xaq iyo baatil ku kala socdaan ama waxaa ku kala socdaan sawaabka iyo maxay iyo khata'a ama waxaa ku kala socdaan sharka iyo khayrka baa helaysaan baa rabbi tilmaamaya subxaana wa tacaala idan koo waxaan leenahay ilaahay wuxuu ina yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu ittaquu allaha waltandur nafsun maa qadamat ligad alle cabsidii baa layna faray marka hore kadib baa layna yidhi khudadiinana degsada eega berri waxaa u horumarsanaysaan qodobka labaad aan tilmaamaya wuxuu yahay khudadka dadka muslimiinta ay degayaan hadduu qof yahay iyo hadduu ka badan yahayba waa inuu noqdaa maxay بعد الله سبحانه وتعالى الاعتماد على النفس لا على الغير لا على الآخر عالم كمان ترقبا وحي قوان صديرين يو أوصية ونغضان إن يهينون هداني يقو كقردادين إن أظهروا مرينين وحنا كما تشيران فهنكو قبين يا مسألة تن
waxaad helaysaa ilaahay kaalmadii wattaquu llaha waaclamuu ana allaha maca almuttaqiin ilaahay kaalmadiiyo inuu ku waafajiyo sida sawaabku ku jiro nebiguna wuxuu leeyahy ixris calaa maa yanfacuk wastacin billaahi walaa tacjis ku dadaal waxa ku anfacaya fi dunya walaakhira ilaahayna kaalmayso oo rabbi ha noqdo cidaad ku tiirsanaysaa hana caajisin markaynu masaladan ka hadlayno ugu horreyn waa inaynu garannaa meel firaaqa ama deganin caalam iska bannaan oo adiga qorshaha ku soconaya waxaad qorshaysaa ma deganin waxaynu degannahay duni masaalixda iyo ahdaaftu ay mutadaarib tahay duni iska soo wada horjeeda oo nin waliba maslaxadiisa iyo dantiisa ilaashanayo waxa hubaala marka adduunya aakhiro ayayna hor yaallaa adduunya aakhiro isma leeka isku qiimana maaha isku riski isku mashkiladna maaha taasi waxay u baahan tahay marka wax la qorshaynayo keebaa mudnaanta leh yani markaad qorshe degayso nolosha waxaad qaban doontaa priorities baa kala jira waxbaad kala horraysiinaysaa siday u kala weyn u kala muhiimsan yihiin baad u kala horraysiinaysaa qorshaheenna waa inuu u weynaadaa qorshaha aakhiro dabeetana qorshaha adduunyo waxaan leenahay marka aynu qorshe dejinayno waa inuu priorities ku kala horreeyaa weliba waxaa hubanti ah haddii qorshaha dambe ee aakhiro uu noqdo ka muhiimadda leh ka adduunyana automatically inuu hagaagayo waayo aakhiro laguma gaadho adduunka kharibkiisa aakhiro waxaa iyadana lagu tagay ku islaaxdaa maxay adduunkan islaaxintiisa tanbaa masraca u ah marka ugu horreyn waa inaynu aad uga fakarnaa ilaahay wuxuu leeyahy yowma tajidu kullu nafsin maa camilat min khayrin muxdara wamaa camilat min suu'in tawaddu low anna baynaha wa baynahu amadan baciida wayuxadirukum allahu nafsah wallahu ra'uufun bilcibaad faman yacmal mithqaala daratin khayran yarah waman yacmal mithqaala daratin sharan yarah qorshahaaga koowaad waa inuu ku jiraa wax kastoo aad samayso barraad la kulmaysaaye muxuu yahay jawaabtaadu wax kastoo aad samayso adduunkan aad qabato wax kastoo aad qabato camal kastoo kaa soo fula barraad la kulmaysaa ee maxay tahay jawaabteedu sidaa awgeed ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam dhallinyaru la talinayaa nin dhallinyaro ah innagu dhallinyarada markaynu la talinayna maxaynu ku nidhaahnaa haddaad nin dhallinyaro aragto waxbaro nin noqo xoogso guurso shaqayso soo kaa maaha taladeena talada ugu badanee dadku waa indhow unbay dadku arkaan maca kuwan ay yidhaahdaan indheer garad indheer ma arkaan indhow bay arkaan dadku waa wada indhow garad buu u badan yihi waxaynu ilmahaaga qorshaha kuu yaallaa muxuu yahay koowaad iskuul dhigo jaamacad ka bax guurso nin noqo taa waxaad ogoshahay inaad ku bixiso maxay waxay u baahantoo dhan baad diyaar ula tahay waxay u baahantoo dhan baad maxay ula tahay ayaad diyaarinaysaa iskuulku gali lahaa kuu noqonayo jaamacaddu ka bixi lahaa kuu noqonayo kharashku u baahnaan lahaa waxaasoo dhan waad diyaarinaysaa maxaad uga dan leedahay nolosha dhow inuu guulaysto berritaad injineer noqon ama dhakhtar noqon ama saan noqon ama ka noqon markaa qorshahaagu wuxuu badanyay ma diyaarinay dhammaanteen isku keen dar wadaad iyo wabiinba keen raace intaa in leeg ma gelinaa aakhiro si uu qofku u guulaysto aakhiro si uu qofku u guulaysto programkaynu degaynaa ma ku jirtaa intaa in leegoo investment ahay bal waxa kaleba ha dambeeyaan maya waxaa kugu adag macallinka qur-aanka dhiga $20 la siiyo war kuwa malcaamadooda waa qaali baa taagantay laakiin waad ogashay jaamacadda dhabka kur inaad bixiso ee uu dhakhtarnimada ka baranayo waayo tan dhow qorshahay kuugu jirtaa oo aad baad u qorshaynaysa nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam cabdillaahi ibnu cumar oo nin dhallinyaro ah buu la talinaya
قربك أنتو كدر بحي حديث كاتقانين بخاري كيالا كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل وأنا دل يراه وريا حوك سلمة ورانو يعني ننقو قرصو كان سمايو حول نغو لكن waxaa la ogyahay hadduu tadambe fikradeeda qabataan hore inay islaaxayso saadaradeed buu nabigu wuxuu ku yiri kun fi dunya kaannaka gharib adduunkan waxaad ku ahaataa sidii qof maxay غريب stranger qof aan meesha u dhalanin ama waxaad noqotaa maxay oo caabir sabiil qof musaafira qofkaas inta uu ka fakaro inuu meesha joogo ama qorshuhu u dajiyo qorshe leegu daji marka xoogaaga iyo xoolahaaga iyo qorshahaaga xoogeen xaggaad u dajinaysaa tadambaad u dajinaysaa inaad tadambe horaysiiso ayaa muhiima sawgeed ayuha alxiba waxay leenahay noloshu khuda kama maaranto laabud min takhtiit lilmustaqbal laakiin takhtiitkeenu wuxuu u baahan yahay inaad qorshayso qorshahaagana priority-ga koowaad inuu noqdo quu anfusakum waahliikum naaran waquuduha annaasu walxijaara ilaahi wuxuu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa iimaanka laga helayo quu anfusakum waahliikum naara war naftiin iyo ehelkiinaba naar ka ilaaliya waa layna og yahay inaynu tanso ka jecelnahay kallaa bal tuxibuuna alcaajila watadaruuna alaakhira ilaahay wuxuu leeyahay tan dhow baa jeceshiin aakhirana inta badan waa ka tegaysaa laakiin bahasha cagsiyaa laynoo tilmaamaya wabtaqi fiima aataaka allaahu addaar alaakhira war wixii ilaahay ku siiyey nolosha aakhiro ku baadigoob ku raadicee walaa tansa nasiibaka min addunya adduunkanna dheeftaada ha ilaabin baa la leeyahay yacni priority-gu ama mudnaanta waxaa le maxay aakhira la leeyahay adduunkaaga ku raadicee waxaa laga yaabaa inagu xoolaha waxaad u dhaqaysaa aad magac yeelatid guri weyn aad dhisatid xoolaha ma u dhaqataa inaad guri weyn jannada ka hesho mise gurigan aad ku jirtaa cidhiidhi iyo fikradda koowaad waxa weeyaan inaad ka beddesho waxaa laynoo tilmaamayaa aakhir inay mudnaanta yeelato waaxsin kama axsana allahu ilayk adduunkana ha ilaabin baa la yidhi si alle subxaana wa tacaala uu kuu wanaajiyeyna u wanaag fal aayadda ku xigta ilaahay wuxuu inooga digayaa subxaana wa tacaala kuwo qorshe ka gedisan iyagu maray qorshahaynu sheegayna inuu leenahay priority-ga waa inuu aakhira yeelataa markaad road mapka aad marayso iyo waxa aad qorshaynayso kuwa iyagu taa dabarrogay baa ilaahay tilmaamay waa aayadda ku xigta marka aayadda hore amar bay ahayd tanna waa nahyi walaa takunuu kaaladiina nasuu allaha faansaahum anfusahum ulaa'ika hum alfaasiquun ha la mid noqonina baa ilaahay leeyay sidii kuwii alle ilaabay qorshaha uguma jiro ilaahay subxaana wa tacaala iyo cabsidiisa iyo aakhira iyo kani qorshaha uguma jirto maxaa qorshahooda ku jira adduunkan siday wax uga noqon lahaayeen baa ku jira sawgeed baa ilaahay wuxuu inoo leeyahay walaa takunuu kaaladiina nasuu allah kuwan maxaa ku dhaca faansaahum anfusahum toodaa ilaahay ilowsiiyaa bini aadamka maanta dunida ku nooli material buu dhisay technology-ga oo dhammi waa material buu ka warramaya laakiin bini aadamkii waa la dhisi kari laayay wuu sii baaba'ayaa technology-gu wuu sii horu marayaa bini aadamkuna maxay wuu sii dib socdaa dhaqan ahaan akhlaaq ahaan caqiida ahaan dadnimo ahaan wuu sii bahaloobayaa bini aadamka dunida jooga bini aadamka dunida jooga dal dhan baa waxaa loo baabi'inayaa in yaroo dhaqaalaha in laga helo dan kale iyadoo aan laga lahayn shidaalkiisa la boobo ama waxoogaa macdan oo ku qarsoon la soo qaato idan wuu sii bahaloobayaa marka wixii naftooda dari ugu jirtaa la ilowsiiyey ama ay ka tageen faansaahum anfusahum ulaa'ika hum alfaasiquun kuwa layna yidhi ha la mid noqonina waa kuwee المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويغضون أيديهم نسوا الله فنسيهم كوا مسألة كسي فيسني كوا نفتود إلا با إلهينا تود إلا وسيي إلهي إلا با إلهينا نفتود إلا وسيي ومنافقين با إلهي تلمامية إذن أيها الأحبة
كوي قرشه ذا آخرة أبو الريد قرآنكم حكوت المامية قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم كوي جنة قالي وحيلين إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين دوني دا مركانو جوغني بي حسابتنا وغو جرتي الله كعبسي مركانو ريراها يددك يقال جوغني أيانو إلهي كعبسنين سبحانه وتعالى سيدا وقدنا فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم كوي قرشها سكح ماضينا آخرة إلهي وحينا قلت المامي قال إنا يردنا يا ليتني قدمت لحياتي يا ليتني قدمت لحياتي نولش إذا ما وحور مرصده أيها الأحبة نولش قرشا الآن ما صعطه سيرة النبي محمد عليه الصلاة والسلام يدقى كيسيبنا إنا برية دين تانا إنا فريسة إلينا وحين إليه والمستقبل كينا آغا مستقبل كاين لآغا وحي وباهنت بين لنا كو الله كعبسي لبا وحي وباهنت بين لنا إني نكدد لما ينفعنا في الدنيا والآخرة وإننا عاجزين صدح وحي وباهنتهي inaynu dunida waa la isluminayaaye riskigu uu tiro badan yahay inaynu qorshe ka yeelano saynu isaga awdi lahayn ama isaga joojin lahayn hadduu yahay naftaada iyo hadduu yahay qoyskaaga iyo hadduu yahay ummadaadaba riskigaa taagan saad isaga awdi lahayd afar waxaynu u baahanay inaynu eegno mustaqbalka dheer inaynu mudnaanta koowaad siino idan gabagabadaydu waxay tahay ilaahay wuxuu yidhi waqul icmaluu fasayara allahu acmalakum warasuuluhu walmu'minuun wasaturadduuna ilaa caalimi alghaybi waashahaada waana camal sameeya baa la yidhi ilaahay iyo rasuulka iyo ummadduba waa idin arki doontaa waxa samaysaan aakhirana ilaahay baa idinka warramay wixii aad samayseen sala allahu calaa nabiyina muxamedin wacala aalihi wasaxbihi wasalam walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin